كنترول بدن كما جرى سوماليا هذا موقع الله يابتان شو lagu qabtay muqdisho gabdho badanna la isku keenay waa quman show ayaan idin soo gudbin doonaa dhammaantiinba madaxa ayaad qabsan doontaan waxa ka dhacay hotelkaas muqdisho ku yaal ee lagu soo bandhigayay gabadha ugu qurxoon Soomaaliya si ay kaga qayb gasho tartan ka dhacaya dalka Nigeria hadaba muuqaal aad hore u daawanina oo la qariyay ayaad halkan ku daawan doontaan dhammaantiinba muuqaalka leegta ku qabta siina sheer gareeya ربي سبحانه وتعالى أنا أمورها لنا هاي دمان تنبه إلهي هاي نوسالو سوماليا وحين قتيد المشروع إذا لو فليو إسلامك أنا ضد دياس براء ودبجوجا إن مشاريع سوق عتان العجاء أطير بدن دبدن وحي آذان جودها سوماليا سيدا مقدشو هرجيس إيميلك كره سي مشاريع لاسيا يوقفليان mid kamid ah hoteelada Muqdisho waxa show ku qabtay qolal la baxday quman show isla markaana sheegaysa in gabdhaha tartan ay gelinayaan si gabadha ugu qurxoon ee ugu qayb gasho Soomaaliya tartanka xagga hablaha dalalka Afrika oo ka dhacaya dalka Nigeria gabadha ayaa hore loo soo diyaariyay waxaana ka tirsan tahay isla kooxdan quman show la baxday waxaana Saadiyo waxaana la sheegay inay naqatay gabadha ugu quruxda badan ee Soomaaliya fashion kana kuma talaysa qaaradda Afrika waxaana arintaasi ka carooday gabdho badan oo hore aan u ogeyn in Saadiyo la soo diyaariyay isla markaana loo diyaariyay ka qaybgalka xafladda ka dhacaysa ama kulanka ka dhacaya qaaradda Afrika wadanka ku yaala Nigeria waxaase halkaasi la sheegay in Saadiyo ay naqatay gabadha ku haboon ee Soomaaliya ugu qaybgalaysa kulankaasi ka dhacaya dalka Nigeria laakiin hotel kamid ah hoteelada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulanka waxaana halkaasi lagu arkay waxyaabo la yaab leh si degan u daawa muuqaalka ila soco waxa goobta nashqada oo ay codsadeen kooxdan la baxday quman show isla markaana hay'adaha ajaanibta lacagaha ka soo qaatay waxay dhankooda ay dalbadeen in nashqada loo eegeysiyo calaamada kristanka ee dhaxda xariijinta kale waxaana arintan markaan la hadlay qaar kamid ah horwadeennada hotelka ay sheegeen in nashqadan ay tahay mid ay ka codsadeen gabdhaha hogaaminaya quman show in nashqadooda xafladooda ama kulankooda in lagu maamuuso isla markaana laga dhigo calaamadan waxaana loo sheegay xoladii NGO-ga ahayd ee wadatay hoosha in calaamadan aysan soconaynin isla markaana ay tahay calaamad kristana waxay dhaheen weelkooda anaka ayaan dalbanay waa in sidan wax lagu sameeyaa si aan u bixino lacaga aad u tiro badan oo hotelka uu naga qaadanayo mid kamid ah hoteelada ugu waaweyn ugu lacagta badan ayaa lagu qabtay kulanka waxaana taas ay muujinaysaa in lacaga aad u tiro badan ay soo qaateen quman show qolada lagu magacaabo waxaana goobta lagu asteeyay ama laga dhigay calaamada kristanka oo ay dalbadeen quman show si degan u daawo muuqaalka oo la soco waa quman show iyo xafladii ay qabteen oo ay ku soo bandhigayeen gabadha ugu qurxoon Soomaalida waxa halkan ka dhex muuqda calaamada kristanka oo lagu xardhay goobta si indhaha qolada lacagta laga soo qaaday ay u soo jiidato ay u naqato ama lacagta loogu kordhiyo gabdhahan quman show hadaba isweydii maxay tahay ujeedka laga leeyahay in kulanka ama munaasabada waxaan oo kale ama calaamadan in lagu xardho warbaahinta gudaha iyo dadka isticmaala social media ee caanka ah ayaa lacaga aad u tiro badan lagu siiyay baahinta arintan iyo buunbuunintooda si aysan ugu hadlin calaamadan oo kale waa waajib muqaddis ah in dadka laga qabto loona soo bandhigo waxa xun Soomaalida 100% waa muslimiin waxaana muhiim ah in la ifiyo waxyaabaha qaar iyo dulduleelaha meelaha Soomaalida laga soo gali karo waana ayaan daro weyn dadka warbaahinta isticmaalaha magaca ku leh in lacaga ay siistaan diintooda iyo dhaqankooda suuban ee la bedelayo midan waa mid ka hor imaanaysa dhaqanka wanaagsan iyo waliba islaamnimada Soomaalida waana muhiim in laga hadlaa hadaba quman show waxa laga fadhiyaa in raali gelin iyo apologize ay ka bixiyaan ku soo bandhigada munaasabadooda calaamada kristanka iyo weynaynta calaamadaasi ay u sameeyeen dhammaantiinba muuqaalka sheerta ku qabtaan siina la gareeyo aan uga soo safro magaaladeedii inta Muqdisho aan imaado si aan u siiyo opportunity-gan gabdhaha kaleeto aadna farxad bay iigu ahayd caawana aad bay u qurux badneed oo lama soo koobi karo والله ما شاء الله وسو أديكا the best girl ayaa guuleysatay oo u soo xulnay insha Allah Soomaaliya ku matali doonto dalka Nigeria December bishan maxay idinku kala faarintaan inaad sameeysaa
والله waxaa igu kalifay horta aniga shakhsi ahaan markaan keenayo barnaamijkan inta cid ila waday ma lahayn aniga inta markii kow aan ku soo taxluujinayo oo rabay inaan keeno waxaan arkay baahi badan ay gabdhaha u qabaan inay in badan ugu baahan yihiin hawshana ay noqon karto mid socon karto marka waxaan is iri gabdhahan si opportunity-gan si ay uga faa'iideystaan ayagoo dhaqankooda iyo soo bandhigayaan talentiga ay leeyihiin kaliya inaan wadankeena laga arkin dhinaca dhibaataysan ee aan leenahay dhinacyo badan oo wanaagsan dhankeeda Ruweyda ayaa idana sharaxaysa sababihii arintan ka dambeysay iyo qaabka barnaamijkan ay u qabteen barnaamijkan waa company la dhaho Quman Fashion Show waa company la dhaho Quman projectyaal badan aan rabnaa inaan sameeyno oo kamid yahay Quman Fashion Show waxaan xalay qabanay fashion show oo ku xayeysiinay companyyaal ilaa 8 gaarayo oo magaalada ku yaalo ilaa waa socod ugu shidan haye socodkii ugu shidnaayay geeska Afrika socod cajiib ah model cajiib wayna waalaysa socodkii ugu shidnaay socod aan waxba laga qaban karin quraxleyda waa kan isteelkan aad arkaysaan caawa aad ayuu u kala kacsan yahay hotel Elid habeenka kan caawa waxba ka dhacaya tartanka quruxda geeska Afrika haye see waxyeeloosa adima saaci galooyo waa ka way socoraysa daawade like ala saar hala share garay haye igada falaadka waa kan way xadreynaysa socod cajiib ah socodkii ugu shidnaa haye xadreyn ayaa ka dhacaysa steel model aan waxba laga qaban karin haye waa ay laabanaysa sii jeedka ayaa ka dara soo jeedkeeda socodkii ugu shidnaa waaye caawa halkan ayaa shidan caawa waxba ka dhacaya haweenka kan caawa waa haween saameyntiisa wata waa haween iskaabula badan ay oy doonaan waa haween aan la saadaalin karin waxa halkan ka dhici doono inna fool ku yaala magacaygu waa Hani Cabdigaas oo wada taqaanaan Hani Kullibax Country Director of Miss Africa Somalia u fadhiya halkan caawa sharaf bay ii tahay farxadna way ii tahay inaan dhammaantiin idinka soo hormuuqdo oo idiin soo hor istaago waxaan gudageli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo gabdhaha soo dadaalay ee imaadeen semifinalka Miss Africa Somalia ee nagu matali doono hal aan xuli doono qofkii nagu matali lahaa Somalia dalka Nigeria sanadkan December 2016 dhammaantiina aan idinka baahanahay garab iyo codeyn iyo wax waliba oo awooddiina inaad nagula garab istaagtaan hadduu ilaahay yiraahdo aad ugu mahadcelinayaa gabdha aad u da'yar misna jecel horumar inay sameeyaan Quman Company oo iyagana aad iga caawiyay suurtagelinta barnaamijkan waa mahadsantihiin xafladan waynoo furan tahay waxaanan u yeeri doonaa stage-ka noo imaan doonaan gabdhaheena models daawadayaal caawa waxaa halkan ka dhacayo tartanka isreereebka fashionka